maxaad ka filanaysaa marka libaax la dhaho waxay noo qaybi? Sheekadeennu waxay ku saabsan tahay libaax iyo dhurwaayo. Waa aan dhoweyn dheerayna oo abaar badani dhacday ayaa waxaa isu yimid 9 dhurwaa oo heshiis ahaan jiray. 9koodu waxay ka wada hadleen siday abaarta uga bixi lahaayeen oo naftooda ku ammaangeli lahayd. Waxay wax isla eegaanba talo waxay ugu ururtay inay dadka xoolaha ka dhacaan si xilliga xun uusan waxyeello ugu yeelan. Dhurwaayadii waa ay soo duuleen oo xoolo raacdood galeen. Iyagoo meel maraya ayuu libaax keligiis ahi ka hor yimid oo isna yaaban. Markaasuu ku yidhi, dhurwaayow aan idin raaco oo jaallihii noqdo. Goortaasay ugu jawaabeen, haddaadna raacdo hadhow heshiin maynee naga tag. Markaasuu ku yidhi, maxaan u heshiin weynay jaallayaal? Libaax waad cir weyn tahay oo waad naga boobi doontaa. Iyagii baa ugu warceliyey. Markaasuu dhaar ku yidhi, wiil iyo walaal ku waayaye inaanan idin boobayn waxaad ku talisaan baana yeelayaa. Goortaasay hawraarsan yidhaahdeen oo dabadeedna kobtii iska raaceen. Waxay 10koodii wada socdaanba geel awaysinkii miranayay 9 halaad iyo awr qurbac ah baalka ku dhufteen oo takhla ooman ka tuureen. Goortay 2 maalmood wadeen bay gaajadii haysay aan iska reebno isku waraysteen. Libaaxii baa ku yidhi, anigu keligay baan ahaaye idinka iga badane qaybta inoogu dhaqsada. Waa ka diideen kuna yidhaahdeen iyagoo ku xurmaynaya, adigaa boqorka bahalada ahe xoolaha inoo qaybi. Wuxuu yidhi libaaxii, haddee ma ku go'daan sidaan waxyeelo? Jawaabtoodu haa bay ahayd. Goortaasuu yidhi, idinku 9 baa tihiin, awrka qurbaca ahaana idinku 10 ah, anna 9ka halaad baa 10 ku ahay. Dhurwaayadii iyagoo caro darla ay ka siriqsan tahay ayuu midkood yidhi, jaallayaal qaybtii sidaas ha ku dhammaato, aamin bahalna intaas ha ku dhammaato. Sheekadeennuna intaas ayay ku soo dhammaatay. Hooyo iyo aabe carruurtaada channelka subscribe u saar si ay u helaan sheekooyin xiiso leh.